dhimashaduna ay ahayd boqolkiiba 3 dadka la baaray marka la eego bishii labaad ee sanadkan hadda dhamaatay korkacba marka ku yimiday xanuunka marka laga reebo gobolka Awdal gobolka Maroodi Jeex oo la baaray 4330 qof waxa laga helay 155 qof waxaana u dhintay 10 qof saaxil waxa laga helay laga baaray 145 23 ma laga helay hal qofna uu dhintay saas marka gobolada kalena isbedel noocaas ah jiray marka waxaan dareemanaa inuu bishii koobaad laga soo bilaabo ilaa tii labaadna uu isbedelkaas uu jiro dadka laga helay xanuunku bishii labaad wuxuu kor u kacay 5% dhimashaduna waxay kor u kacday 6%. oo macnaheedu tahay 3% bay bishii hore ee koobaad dheeraad ka ahayd bishan ku jirno oo aan wali dhamaanin oo maanta 22 waxa dadka la baaray gobolka Awdal ay ahayd 208 qof waxa laga helay 39 qof 2 qof waa dhimasho ah gobolka Maroodi Jeex 3000 iyo waxa la baaray 74 qof waxa laga helay 344 dhimashaduna waa 12 qof saaxil waxa la baaray 427 waxa laga helay 125 hal qof waa dhimasho marka sida gobolka loo eego dhimashada oo togdheero kale waxa la baaray 385 boqoliyo hal baa laga helay 7 qof waa dhimasho ah sool 112 qof la baaray 3 iyo 6 baa laga helay 3 waa dhimasho ah sanaag waxa laga baaray 23 qof 14 qof laga helay hal qof baa ayaa dhimasho ah marka la isku geeyo wadarta la baaray bishan aan wali dhamaan waa 4340 qof inta laga helay waa 659 qof dhimashaduna waa 35 qof oo macnaheedu tahay xanuunka dadka u soo dhacaya ee laga helayo waxay kor u kacday 15% dhimashaduna marka loo eego inta qof ku dhacay waa 5%. hadii marka la eego isbarbardhiga saddexda bilood ee u dambeeyay eegno wadarta marka la isku wada geeyo waxa la baaray 13720 qof dadka laga helay waa 950 qof ilaa imika inta dhimatay marka maanta laga reebo iyo shalay waa 50 qof xadiga laga helay xanuunka boqolkiiba waa 7 qof inta u dhimatayna boqolkiiba 5 weey marka waxa arkaysan in isbedel weyn oo xanuunku sameeyo marka la eego dadka uu ku dhacayo iyo dadka xanuunkaasi u dhimanaya si kale hadaynu marka u muujino ama sawir aynu ka bixino bal sanadkan 3 bilood ee aynu ku jirno iyo sanadkii hore 3 bilood aynu u dambeeyay ka bilaamayay October ilaa December sanadkii hore 3 bilood ee u dambeysay waxa la baaray 12707 qof xanuunka waxa laga helay 357 waxa u dhimatay 16 qof oo macnaheedu ahayd boqolkiiba 3 dadkii la baaray xanuunka waa laga helay boqolkiiba 4 oo dhinteen 3 bilood ee imiga aynu ku jirno ee wali aan dhamaan waxa la baaray 13720 qof waxa laga helay 950 oo macnaheedu tahay waxay laba jibaar ku tahay 3 jibaar tiradii markii hore laga helay waxa kale oo dhimashadu ay u booday 16 3 bilood hore ahaa iyo 50 3 bilooda dadka xanuunka laga helay boqolkiiba 3 bay ahayd 3 bilood ee u horeysay u dambeysay sanadkii 2020 imigana waa boqolkiiba 7 qof boqolkiiba 7 ayaa xanuunkii laga helay dhimashaduna waxay u booday ilaa boqolkiiba 5 marka waxa laga arkayaa in isbedel weyn xanuunku sameeyo oo maalin aanu ku darin dadka xanuunkan u soo dhacayana ay u badan yihiin dadkii waaweynaa dadkii la noolaa xanuunada iyo dadka kale ee maxaa iyaguna qaybaha kale bulshada inta markan ka tagno hadaba walaal xaaladda xanuunka dalkeenu haatan marayo hadii aynaan si degdeg ah wax uga qabanin waxa iman karta inaynu galno marxalad ay taladu faraha ka baxdo taasoo halis gelin karta qof kasta oo muwaadina keeni kartana in dhaqaaqii dhaqaalaha iyo isku socodkii dadka iyo nolosha adkaato hadaba si aan arintaasi ayna u dhicin gudida qaran ee ka hortagga iyo maareynta xanuunku waxay iyagoo ka duulaya khatarta uu bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku hayo nooca cusub ee xanuunka COVID-19 khatartaasi oo maalinta ka dambaysa si kordhaysa iyagoo si qoto dheer ugu kuurgalay halista ka dhalatay laba kacleynta wajiga cusub ee xanuunka iyo waxyeeladiisa dhimasho iyo bukaanba ee uu leeyahay xanuunkan uu keenayo iyo culayska uu ku hayn karo bulshada iyo iyadoo la eegayo mudnaanta koobaadna la siinayo badqabka iyo badbaadada iyo fayadhowrka caafimaadka bulshada reer Soomaaliland iyadoo ahmiyadda koobaad la siinayo si kasta oo loogu hortagi karo
loona yareyn karo faafitaanka xanuunka ee bulshada dhexdiisa iyada oo aan ogsoonahay inay weli jirto khatarta uu xanuunka covid-19 bulshada dhexdeeda ku faafi karo ummadana si weyn ugu adkaynaysa inuu qof walba muujiyo taxadir iyo mas'uuliyad dheeraad ah oo lagaga hortagayo faafitaanka wejigan cusub ee covid-19 iyaga oo taxadir weyn iyo ahmiyad gaara siinaya guddigu si kasta oo loo yareyn karo culays iyo ciriiri ku yimaada habsami u socodka nolosha bulshada ee maalinlaha ah iyaga oo si dhaba u dareensan maskaxdan ku haya saameynta ay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeelan karto haddii mar kale la soo rogo xayiraado dhammaystiran ama ha noqoto xag dhaqaale iyo xag dhaqdhaqaaq bulshaba oo lagu xakameynayo fiditaanka wejiga cusub ee xanuunkan guddiga qaranka ee covid-19 iyagoo ka duulaya dhammaanba qodobada kor ku xusan iyo weliba qiimeyn lagu sameynayo duruufaha gaarka ah ee uu la yimid wejiga cusub ee xanuunkan coronavirus waxaa la gartay in la soo rogo tilmaamo iyo go'aamo ay guddidu baryahama ka baaraandegaysay oo nuxurkana uu yahay iyo sababto in bulshada reer Somaliland qof weyn iyo qof yarba xanuunka culayskiisa laga ilaaliyo go'aamo tiro ah go'aamadana waxaan u dhaafayaa wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta oo inoo faahfaahiya Sheekh Xaliil ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa bacd